بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ku hadlaya magaca wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug waxaan la qabaa shirkan jaraa'id maanta halkan aan ku qabanay wasaaradaha warfaafinta ka socda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle. sidaad la socono waxaan soo casuuntay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay nagu casuumeen shirkii markaa u nimid wax ajenda iyo qaabka uu u soconayo shirka noomaysan soo dirin markii aan tagnay hoolkii shirka uu ka dhacay waxaan la kulannay wixii aan filayna wax ka duwan waxaan meesha ugu tagnay waxyaabo aan u cuntamaynin waxyaabihii aan ku matalaynay wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada doorka ay ku leeyihiin ayaa meeshaas macnaha aan ka muuqan sidaa daraadeed inagoo matalayna amaba ka socona dowlad goboleedyada in wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya aysan wax door ah markaa halka aysan ku muujin waxaan go'aansanay inaan gabi ahaanba qaadacno shirkaasi si midaysan codkeenana aan u gudbino kuna biirino in aan bari ka nahay shirkaasi iyo waxyaabaha ay hadda kadib ay wadaan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxaan la soconaa ama la socotaan in wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedyadu ay matalaan saxafiyiinta Soomaaliyeed deegaanada ay ku sugan yihiin mar haddii saxafiyiintaasi aysan helaynin xuquuqda iyo doorka meesha uga furan waxa halkaasi ka cad in inaguna ay arintaasi nagu dhacayso mas'uuliyadeeda halkan waxa ka muuqda wax ay noo soo direen oo ah in shirka lagu qabanayo hoolka xalana uu yahay shirka caalamiga ah ee badqabka saxafiga Soomaaliyeed mar haddii arrimahaasi laga hadlayo waa dareemi kartaan inagu waxaan ka soconnaa dowlad goboleedyo waxaan matalnaa wasaaradda warfaafin ayaa noo dhisan wasaaradahaas warfaafinta waxaa noo dhisan ururo saxafiyiinta doorka meeshaasi ay ku leeyihiin dadka mas'uuliyadda u qaadi lahaa waa annaga mar haddii doorka meeshaasi uusan ka muuqan waxaan noo cuntami waayey inaan shirkaasi sii joogno waana qaadacnay waana ka soo baxnay waxaan rabnaa marka ugu dambaysa inaan baaq u jeedino dhammaan hay'adaha taageera saxaafadda Soomaaliya in arintaasi fiiro gaar ah ay u yeeshaan calaamad su'aalna ay saaraan maadaama stakeholderska la doonayo in marka saxafiyiinta Soomaaliyeed lagu badbaadinayo qayb ay ka yihiin dowlad goboleedyada deegaanada gacanta ay ku hayaan in doorkooda la siiyo mar haddii doorkaasi uusan muuqan waxaan u sheegaynaa hay'adaha taageera saxaafadda Soomaaliya in arintaasi ay fiiro gaar ah u yeeshaan isla markaana dadka maamulaya ay ku og yihiin arrimahaasi ay ka fiirsadaan arintaasi in loo dhan yahay iyo in kale haddii doorkaasi uu maqan yahay waxaan u sheegaynaa in waxa soconaya ay yihiin wax markaa siyaabo kale macnaha loo maamulayo ma dheereynayno waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu baaqaynaa in arintan ay soo farageliyaan madaxda ugu sareysa hadday yihiin heer federaal iyo heer dowlad